kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida jimco wanaagsan waa 10ka bisha kuwa sanada 2020 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo maanta safar degdeg ah ugu ambabaxaya dalka Eritrea iyo ujeedka socdaalkiisa oo la ogaaday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo kulan loogu yeeray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland shacabka magaalada Muqdisho oo digniin culus loo diray iyo halis amni oo soo korortay yaa fududeeyay qaraxii 8 bishan ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho iyo saraakiil ciidan oo loo xiray iyo James Swan oo war ka soo saaray wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu kulan degdeg ah maanta ku aado magaalada Asmara ee dalka Eritrea siday ogaatay warbaahinta ila wareedye ka tirsan villa Soomaaliya iyo warbaahinta uu sheegay in madaxweynaha uu martiqaad ka helay dhigiisa dalka Eritrea Asis Afwerki kulanka labada madaxweyne ayaa looga hadli doonaa xiriirka labada dal isbahaysiga ay wada dhiseen Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Eritrea iyo arrimo kale oo gobolka ku saabsan booqashada ayaa imaanaysa xilli xiisad ay ka dhex ogan tahay dawladaha Eritrea iyo dawladda Qatar oo aad isugu dhow yihiin villa Soomaaliya mana cadda sida booqashada madaxweynaha ay tan u saameyn doonto wasaaradda warfaafinta ayaa qoraal ay soo saartay 28 November sanadkii 2018 waxay ku eedeysay Qatar in dalkeeda ka wada kicin dadweyne qaarijin dhibaateyn dhaqaale iyo qarbudaad dhinac walba kadib markii sanadkan ay Qatar ku guuldareysatay inay Suudaan u adeegsato masrax ay ka soo qaado ficilo argagixiso oo ka dhana Eritrea nafla caarinimada Qatar sare ay u sii kacday ayaa lagu yiri qoraalka dawladda Qatar ayaa iska diiday eedeymahaasi been abuurka waxaana ay sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn kooxo ku sugan dalka Eritrea taasina ay dawladda Eritrea si wanaagsan ay uga warhayso dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa kulan lagu heshiisiinayo ugu yeeray madaxda dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro khilaafka labada dhinac Dani ayaa sheegay in xalka siyaasadeed ee dalka ee xilligan uu arkay in madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay isugu yimaadaan madal ay ku wada hadlaan waxa uu sheegay Dani in mar walba xalka uu yahay wada hadal isla markaana dawlad goboleedka Puntland diyaar u tahay inay u dhigto Google ay ku wada hadlaan Puntland waxay markaas cadeynaysaa in wada hadalka ay wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sawiro lagu soo wada galo balse ay noqdaan kuwo looga hadla arrimo dhowr ayuu yiri madaxweyne Dani ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay in madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ka tashadaan heshiiska ka gaaraan arrimaha amniga dastuurka qaybsiga kheyraadka iyo deeqaha caalamiga kuwaas oo waxyaabaha inta badan la isku khilaafo hadalkan ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ka sheegay munaasabad loogu dabaaldegayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii loo doortay madaxweynaha maamulkaasi Puntland madaxweynayaasha Puntland Jubbaland iyo Galmudug ayaa wax xiriir la lahayn dawladda dhexe muddo bilooyin iyo sanado ah waxaana taasi ay caqabad ku noqotay qaar ka mid ah qorshayaasha qaranka geeska kalena laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa loo xiray qaraxii maalin ka hor ka dhacay kontaroolka sayidka oo ka mid ah goobaha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya askarta qaraxa loo xiray ayaa ilaalo ka ahaa control ay booliisku leeyihiin oo ku yaala inta u dhaxaysa hotel Wehliye iyo isgoyska dabka halkaas oo la aaminsan yahay inuu soo maray gaariga isku qarxiyay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in gaarigan uu soo maray bar control isla markaana aysan jirin cid baartay balse hadda loo hayo shakhsiyaad soo fududeeyay inuu halkaasi gaaro dabka ilaa iyo sayidka ma jirto wada aan laamiga ahayn oo gaari soo mari kara waxaana qaraxa laga soo gudbiyay controlka u dhow isgoyska dabka waana la qabtay ciidankii heegankaasi ku qornaa ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo la hadlay warbaahintan askariga ku sugnaa controlkan laga soo gudbay waxa uu noo sheegay inaysan gaadiidka baarin maalmahanba ay iska fasaxayeen kana uu qayb ka noqday kuwaas marka waa la hubinayaa askartan ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalka booliiska ciidamada ammaanka Soomaaliya ee ku sugan isgoyska iyo wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waqti badan gelin baarista gaadiidka waxaana ay qaarkood weydiiyaan oo kaliya aqoonsi halka qaar kalena ay aqoonsi weydiinin gaadiidkan aysan wax baaritaan ay ku sameynin waana xiliyada ay badanaa jirta xaalad deganaansho
ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa ka muuqda dadaal rafaad iyo daruufo adag mana aha niyad dhisan ay ku howlgalaan qaarkood waxay ka cabanayaan mushaar la'aan muddo dheer haysa halka qaarkoodna ay shaqeeyaan waqti ka badan intii loogu talagalay isla wararkii arrimaha magaalada Muqdisho ayayna ku guda jirnaayo qubarada dhanka amniga ayaa talooyin iyo digniino amni u jeediyay shacabka magaalada Muqdisho si ay uga feejignaadaan qaraxyada iyo halisyada amni ee kaga imaanaya magaalada Muqdisho Korneel Cabdilaahi Cali Macu oo ka tirsan saraakiisha hore Niisa ayaa sheegay in dhowrkii bil ee soo aadan ilaa sanadka loo baahan yahay in shacabka magaalada Muqdisho ay muujiyaan feejignaan dheeri ah iyadoo ay u badan tahay in magaalada wajihi doonto dhacdooyin badan oo amni darro ah sida ay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen saraakiil ka tirsan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho sanad kasta oo kala guur al-shabaab waxay ka faa'iideystaan muuqaalka siyaasadeed iyo midda doorashooyinka waxaana ay beegsadaan shacabka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada waxaana la filayaa inay weerar kala dhacaan waa inay taxadiraan shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayuu yiri Cabdilaahi Cali Macu oo wareysi siiyay warbaahinta waxaan ugu baaqiyaa dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho inay socodka yareeyaan iskuna dayaan inay ka baaqsadaan hoteelada iyo wadada Maka al-Mukarrama kasoo bilow Banaadir ilaa iyo Liida iyo wadooyinka kale sidoo kalena goobaha la isugu yimaado ayna ka digeen ayuu yiri sidoo kale waa in waalidiinta aysan raacin caruurta waa in laga baaqsadaa in hal gaari la wada raaco iyo hal waqti la wada safro ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalkan Korneel Cabdilaahi Cali Macu ayaa qaba in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga magaalada Muqdisho loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay isku tashtaan maadaama ay dhammaan la yihiin dhibaatooyinka taagan ee dhanka ammaanka dhinaca kalena wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo magaalada Hargeysa kula kulmay madaxweynaha Somaliland ayaa war ka soo saaray wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo doorashooyinka Somaliland waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi kooxdiisa iyo shacabka Somaliland soo dhaweyntooda diiran markii ugu dambeysay aan soo boqdo magaalada Hargeysa waxay ahayd 6 bilood ka hor waxaana ku tala jiraa inaan si joogto ah u sii wada booqashada si aan u sii wadno wada hadallada aan la leenahay mas'uuliyiinta sare iyo waliba hay'adaha aan dawliga ahayn ee ku howlan horumarka Somaliland qaramada midoobay waxay ku leedahay magaalada Hargeysa xafiis si buuxda u shaqeeya oo fuliya mashaariic ballaaran oo kala duwan si looga faa'iideeyo dadka Somaliland xafiis joogto ah ku leedahay magaalada Hargeysa waxaana ay fulisaa barnaamijyo badan oo kala duwan oo lagu talagalay dadka reer Somaliland intii aan ku guda jirnay booqashada waxa sharaf ii ahayd inaan la kulmo madaxweyne Biixi iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada wakiil ka socday ururada bulshada xisbiyada siyaasadda iyo saaxiibada caalamka ee ka howlgala Somaliland waxaan kale oo aan booqday mashruuca xirfadda lagu baro dadka baahiyaha gaarka qaba iyo mashruuca barbaarinta duurjoogta qaramada midoobay ayaa soo dhaweynaysa dadaalada loogu talagalay in lagu dhiso kalsoonida labada dhinac laguna xoojiyo wada hadallada u dhaxeeya Hargeysa iyo Muqdisho waxaana aaminsanahay inay jiraan dhinacyo badan oo iskaashi ballaaran laga sameyn karo si loo hagaajiyo amniga loona xoojiyo kobcinta dhaqaalaha loona horumariyo dadka noloshooda waxaan dhiirigelinaynaa in si dhaqso leh horumar looga gaaro dhamaystirka talaabooyinka laga maarmaanka u ah Somaliland si loo qabto doorashooyinka baarlamaanka 2020 waxaan soo dhaweynaynaa wada xaajoodka u dhaxeeya xisbiyada waxaan ku boorinaynaa in la dhaqangeliyo heshiisyada dhawaan la gaaray diraar garow doorashooyinka dhaca 2020 waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Somaliland inay xaqiijiyaan xurmeynta xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka iyo sidoo kale awoodda ay xisbiyada u leeyihiin abaabulka iyo howlgalka jawiga siyaasadeed ee noocaas waxa uu muhiim u yahay in la helo geedi socod isku kalsoonaan karo waxaan hoosta ka xariiqay dadaalada wanaagsan ee dhawaan wax looga qabtay khilaafaadka dabadheeraade ee ka taagnaa Sool iyo Sanaag oo ay ku jiraan dadaaladii lagu dhawaaqay wixii ka dambeeyay dagaalkii Tuqarraq ee 2018 iyadoo loo maray wada hadal iyo hab wax ku ool ah oo lagu yareynayo xiisadaha laguna dhaminayo halista colaada intaas ka badan waxaana ku boorinaynaa in dadaaladaasi la sii joogtay oo la sii xoojiyo ugu dambeyntiina mar labaad waxaan uga mahad celinayaa dadkana martigeliya soo dhaweynta diiran waxaan rajaynayaa inaan sii wadno booqashooyinkeena joogtada ee magaalada Hargeysa si aan u sii wadno xiriirka iyo iskaashiga una sii ambaqaadno arrimaha muhiimka aan ka wada hadalnay toddobaadkan ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya kadib markii wakiilka gaarka ee qaramada midoobay uu booqday magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland
ugu dambeyntiina ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa guula ka sheegay howlgal maanta ka dhacay deegaanka Yaaq Bishaaro oo dhanka galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidanka daraawiishta ayaa ku dhaqaaqay deegaankaasi kadib markii la soo sheegay inay soo galeen xubno ka tirsan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. aadan cabduqaadir cabdilaahi guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta Jubbaland oo horkacaya howlgalkan ayaa sheegay inay ku dileen ugu yaraan 3 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen mid kale oo dhaawaca. abaanduulaha ayaa gelinkii dambe maanta duleedka magaalada Kismaayo ku soo bandhigay hub uu sheegay inay ka furteen shabaabkii lagu dilay howlgalka ka dhacay. abaanduulaha ayaa tilmaamay in shabaabka laga hortagay uu qorsheynayo weerar uu ku qaaday ciidamada Jubbaland ee ku sugan deegaanka Cabdi Birole balse ay xogtooda heleen kadibna ay ku dhaqaaqeen. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkeenu halkan soo gelino waana mahadsantii soo